daawadayaal ku soo dhawaada macluumaad guud oo aan ka soo ururinay dunida. Dalka Mexico ee dhaca waqooyiga Ameerika waxaa aad ugu yar dhaqaatiirta ilkaha. Dalkan marka la eego tirada dhaqaatiirta ilkaha 100,000 ee qof waxaa ku soo aadaysa 10 dhakhtar oo ku takhasustay daweynta ilkaha. Arrintan ayaana waxa u sababa ardayda reer Mexico oo aan xiisayn barashada mihnadan. Uzbekistan waa dal xiran oo aan bad lahayn isla markaana dhaca bartamaha qaaradda Aasiya. Waxaa ka mamnuuc ah in la dhigto ciidaha dhalasho ama ciida Christmaska. Xukuumadda Uzbekistan ayaa gebi ahaan mamnuucday ciidahan. Waxay kaloo mamnuucday in ubaxyo loo gato ama guryaha loo quruxsado. Waxayna noqonaysaa dowladda labaad ee mamnuucday ciidahan marka lagu daro dowladda Sacuudiga. Dalka Mali ee dhaca galbeedka Afrika isla markaana ah dalka 8aad ee ugu badka weyn Afrika lagama ogolo muusiga. Waxaa ku jira dowladda dhinacyo diidan muusiga isla markaana ka tirsan kooxo diimeedyo ka jira dalkaas. Waxaa dilal kala duwan iyo ciqaab loo geystay dhowr ruux oo muusiga tumi jirtay, waana midda inta badan shacabka reer Mali ku qasabtay inay u hoggaansamaan diidmadan. Jasiiradaha Falkland ee hoostaga Ingiriiska waxay dhacaan koonfurta badweynta Atlantika. Sheekada xiisaha leh ee aan jasiiradahan u soo qaadanay waxay tahay dadka iyo idaha ku nool jasiiradahan waxaa badan idaha ku nool. Waxaa lagu qiyaasaa dadka ku nool 3,000 oo qof, halka idaha jooga jasiiradahan lagu qiyaaso 1,5 milyan. Muwaadin walba waxaa ku soo aadaysa 350 oo neef. Jamhuuriyadda Mongolia ee dhacda bartamaha Aasiya waxaa lagu qiyaasaa badka ay ku fadhido 1,566,000 oo kiiloomitir isku weeran, halka ay gaarayaan dadkeedu 3,81,678 qof. 45% dadkeedu waxay ku nool yihiin caasimadda ee Ulaanbaatar. Waxayna tani sababtay in 2 kiiloomitir ee dalkan celcelis ahaan in ay ku noolaadaan 4 qof oo kaliya. 60% harooyinka caalamka waxaa laga helaa Kanada oo kaliya, waxayna harooyinkan ku fadhiyaan 9% badka guud ee Kanada. Haddii aan xusno qodobkan cagsigiisa, boqortooyada Sacuudiga waxay ka mid tahay dalalka waaweyn ee dhulka ballaaran ku fadhiya, laakiin aan lahayn wax wabiyaal ah, waxaana ay ku tiirsan tahay biyaha badda ee la sifeeyo iyo biyaha ceelasha. Ugu dambeyn aan dul istaagno jasiiradda Guam ee dhacda galbeedka Pacifiga isla markaana hoos tagta dowladda Mareykanka. In jasiiraddan ay ka tirsan tahay Mareykanka waa shil taariikheed oo horey u dhacay, waxayna arrintan ka dhalatay dagaalkii Mareykanka iyo Isbeen dhex maray sanadkii 1898. Waxay ka mid ahayd heshiiskii Mareykanka loogu wareejiyay dalalka Puerto Rico iyo Philippines, balse markii dambe Philippines way ay qaadatay xorriyaddeeda, halka Guam ilaa maanta ay ka mid tahay dhulweynaha Mareykanka. Dhulka Mareykanka ee ugu dhow Guam waa jasiiradda Hawaii oo u jirta 6,400 kiiloomitir dhanka bari, halkaasi oo ay u tahay maalin Arbaco ah, halka Guam ay tahay maalin Khamiis ah oo ay qoraxdu sii dhacayso. Muwaadiniinta Guam waxaa loo yaqaanaa Chamorro, waana dad Mareykan ah balse aan loo ogolayn in ay ka qayb qaataan doorashada madaxweynenimo ee Mareykanka. 4 meel marka loo qeybiyo jasiiradda, meel waxaa iska leh militariga Mareykanka, waxaana loo isticmaalaa saldhigyo ay iska leeyihiin ciidamada badda iyo kuwa cirka. Guam waa meesha ugu fog ee dadka Mareykanka ay aadi karaan iyagoo aan ka bixin gudaha Mareykanka. Haddaba haddii aad channelka ku cusub tahay, fadlan subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada kale.